بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. نسأل الله أن يجعلني وإياكم من أنصار الدين ومن حزب مفلحين. شرف بيئتهاي أكتدنا ملقية ماموس وين بيك جويسا إن ما أنت كقيب قاطو برنامج كإفتنشة، وأن كقيب قادنا يو كلمة كوبان وكوسابسان معناها نولشة. run ahaantii si kooban marka looga hadlayo nolol waxaan u aqaanaa hab Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku oomo cid isagu ula jeed gaara uu ka leeyahay, ha ahaata bashar ama makhluuqa intiisa kale. Ilaahay subxaanahu wa tacaala marka uu oomo ruuxba uu geliyaa jismiga wuxuu uumayo ruuxdaasi macnay samaysaa oo inta adduunka guudka korkiisa la joogo micno taariikhda gashabay ka tagtaa, hadday xayawaan tahay iyo hadday makhluuq tahayba. masalada nolol filosofarada qaar waxay sheegayaan noloshuba inay tahay biyo ka soo qulqulaya tog weyn. biyaha toga weyn ka soo dhacaya waxaa lagu masalaa inay nolosha laftirkeeda tahay. toga weyn ay ka soo dhacayaanna waxa weeyaan waa dunida lagu guudka noolyahay. biyahaasi way soo qulqulaan oo waxay soo doontaan goobaha ila dhaqsiga leh, laakiin waxaa ka hor yimaada dhagaxaan waaweyn oo jihaday ku socdeen maaha jiha kala mariya biyaha. dhagaxaanta waaweyn biyaha ka hor yimaada ayaa lagu tilmaamaa basharka aqli garadka ah ee nolosha micnaha u sameeya, ee kaalinta muuqatay mugala ka gala taariikhda adduunka guudkiisa lagu noolyahay. basharkaasi waa kuwa ku suntan qiimaha iyo qadarka weyn bulshada dhexdooda, waa kuwa ka taga magac iyo manfac aan maalmo kooban dunida lagu hadalhayne malaayiin qarni iyagoo qabriga ku jira lagu xuso. waxaana ka mid ah asxaabtii rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu tarbiyadeeyey. from the day rasuulku calayhi salaatu wasalaam tarbiyada uu siiyey up to now qof kastoo soo hadal qaadaa wuxuu odhanayaa radiyallahu canhu wa ardaa. sababta loo leeyahayna waxa weeyaan waxay garteen ilaahay subxaanahu wa tacaala maqsadku dunida guudkeeda u keenay. lidaalik ilaahay isagoo ka hadlaya noloshan adduunka waxa uu leeyahay alladii khalaqa almowta walxayaa liyablu'akum ayukum axsanu camala. nolosha dunida guudkeeda la joogaa ulajeedka laga leeyahay waxa weeyaan competition iyo tartan basharku ay ugu jiraan acmaal ay qabanayaan ama tu dunawiya ama tu aakhiro, laakiin culimadu waxa u shardidaa camal aakhiro. wafii dalika falyatanaafasil mutanaafisuun. basharka ilaahay karaamadaas siiyey oo makhluuqa intiisa kale ka fadilay ee dunida guudkeeda keenay hadduu garan waayo waxa loo abuuray waa ayaan daro iyo nusqaan weyn. runtii categories bay bini'aadanku haddaba u kala baxaan. adigu qaybteed nolosha ku leedahay si qofkee tahay inaad noqoto ama qofka la rabo inaad noqoto la sugayaa waa qofka nooceeya. basharku categorieska la kala siiyaa waa 4 qaybood. qaybta koowaad waa qof qofnimadiisa u nool. qaybta labaadna waa qof u nool qoyskiisa. qaybta saddexaadna waa qof qowmiyadiisa iyo qabiilkiisaba u nool. qaybta afaraadna waa qof qarannimada daleed iyo duniyadu nool. marka iskoobka adigu aad ku xisaabtamaysaa waa inuu noqdaa inaadan naftaada iyo inta kugu ag nool unaanad ka fikirine inaad noqoto qof ay ku jirto maskax lagu maarayn karayo malaayiinka dunida ku nool ee la miyir doorsan diin la-aanta dhaqan xumada ee u baahan badbaadada dhabta. adigoo Somaliland jooga waa inaad awoodi karaysaa inaad hagto ood geedgarayso kuwa dunida ugu baktiya diin la-aanta. markaasaad kaalintaada runta aad qaadan karaysaa. Somalilandna dadkaynaguna nool ee muxtarimka ku ah ee Sheekh Dirir ka mid yahay, ee Hadraawi ka mid yahay, ee Sheekh Mustafa ka mid yahay,
waxa weeyaan dantooda gaar ay ka tegana tu guud ba u baxeen damoor ta gaara bartan aad dhigto ee ta guud aad u banbaxdana magacaaga iyo muuqaalkaagu malaayiin dunida ku dul nool ay maskaxda ka qabsanaya therefore inaad ku caanbaxdo wax aakhiradaada iyo adduunkaagaba anfacaya oo ilaahay subxaana wa tacaala maalinta aakhiraad kaga badbaadaa waxaan u arkaa oo agteeda ay qadar weyn iyo qiimo mugle uga goysaa si aan xaggan lagu soo koobi karayn walaashayda dhabta ah ama walaalkayga dhabta ah ee jaaniska u helay inaan kaliibkan wada wadaagno waxaan kula talin lahaa inaad noqoto mashaakilaadka ijtimaaciga bulshada dhex yaalla qabyaaladda iyo qaadka iyo kala ququbka ummadda iyo qarbuunka sigaarka uu dhex yaallo kii sababtiisa qarankani kaga bixi lahaa inaad garato kaalinta dhabteed ummadda aad ku leedahay tay tahay inaad garato shakhsiga dhabtee adigu aad tahay waxaan ku soo ururin lahaa oon ku soo afmeeri lahaa mahadnaq ballaaran oon u jeedinayo walaalaha fursadanii siiyey inaan kaga qayb qaato barnaamijkan waxaan leeyahay Ramadaan Kariim